بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan idin salaamayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa daawadayaasha meel kastoo joogtaan inuu inaga dhigo kuwii cibaadadooda la aqbalo noocyadeeda kala duwan waa kolley waa meel barwaaqo ah waddankeeniya roobkuna waa inoo da'aya ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa kolley waa yar jimicsanaynoo socodkii buu ahaa waxaan yar baraarujin lahaa qofka muslimka ah markuu nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam waxau idhi almu'minu alqawiyu khayrun wa axabbu ila allaahi min almu'min adaciif qofka mu'minka ah ee qawiga ah ayaa ilaahay uu ka jecel yahay ka mu'minka ee daciifka ah labadoodubana waa khayr oo khayr baa ku sugan labadoodaba marka quwaddaasi culimmadu markay sharxayaan waxay leeyihiin waa quwad xagga ruuxda ah iyo quwad xagga jidhka ah labadaba way noqonaysaa quwadda xagga ruuxda ah baa qiimo badan oo aataynu ku dadaalayno waa quwadda xagga iimaanka xagga macnaa caqiidada iyo cibaadada iyo xagga cilmiga taasi wax loo dhigaa ma jiro waa taqaayada ah aynu u soconno qofka in caqiidadiisa iyo cibaadadiisuba dhisan tahay quwada waxa iyadana wasiilo noqonaysa oo taa ina gaadhsiinaysa quwada badaniga ah ama quwadii qofka in jidhkiisu dhisan yahay saa daraaddeed ayaa islaamkeennu wuxuu dhiiri gelinayaa inuu qofka muslimka ahi ku dadaalo caafimaadka jidhkiisa si uu wasiilo ugu noqdo oo cibaadadii dhadhan iyo awood ugu helo marka waxaynu xusuusannahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhinacyo badan buu tusaale inoogu ahaa waxyaabuu tusaalaha inoogu ahaa waxaa ka mid ah caafimaadka waxaa ka mid ahaa cibaadada quramaha ee caafimaadka ka mid ahaa saa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka qaybgeli jiray tartankii xagga marka la eego legdanka oo maalmaha ka mida nin rukaanata ibnu yaziid ibnu rukaana la yidhaahdo ayuu nebigu uhi ma legdannaa ma adigaynu legdannaa buu hi haa waa intaan la soo dirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam 3 jeer bay ninkii legdameenoo 3dii jeerba dhulku dhigay 3 neef oo adhiyahoo sharad ahaana wuu ka qaatay waa intii aan sharadka la xaaraantinimaynin waxaynu uga jeednaa markii dambe adigu ninkii 3dii neefna wuu celiyey ninkii wuxuu yidhi waxay taasi sabab iigu noqotay inaan islaamo oo waxaan gartay maadaama aan ahaa ninkii quraysh ugu xoog badnaa aan cidi legdi jirin in ninkan la weheliyo oo awooduu leeyahay aanu igu legdin waxaynu ogsoonnay tartanka orodku ka qaybgeli jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo xaaskiisii caayisha waa kii lahaa aan beratanno 2 jeer baa colkoo safar ku jira ayaa uu caayisha ku yidhi haabay tidhi oo iyadaa ka dheeraysay doorkii hore doorkii labaad ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu colkii yidhi 2 jeer buu colku odhanaya hore u sii socda si aan xaaskiisii iyo dee orodkeeda loo arag markay cidla iska helaan baa dabeedna ay tartamayaan doorkii labaad buu haddana isagu ka dheereeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasaa nebigu waxa uu ku yidhi tilka bitilka tii hore ayaad u dhigaysaa tan maanta doorkii hore adaa iga dheereeyey doorkanna anaa kaa dheereeyey marka taasi waxay tusaale u tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tartanadaa ka qaybgeli jiray tartanka gaadiidku ka qaybgeli jiray iyo maaragtay dhiirigelin jirayna oo asxaabta uu ku dhiirigelin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waxaynu baraarujin lahaynu 2 arrimood qofka muslimka ahi ma aha mid ku dadaalo inuu jidhkiisa dhiso sidaynu aragnay dhallinyarada qaarkood waxaan arkayey qolyo dhallinyaradeenna ka mid ahoo soo sawiraya jidhkooda iyo siday u dhiseen oo isqaawiyeyba taasi sax maaha waa arrin qalada weeye inuu qofku isqaawiyaa sax maaha oo had iyo jeer markaa qofku jidhkiisa uu dhisaya ama riyaadada waxaan la yidhaahday iyo uu gelayo waxaa shuruuday leedahay shuruudaheeda waxaa ka mid ah in cawrada aan la bannaynin in cawrada la banneeyaa ceeb weeye raggana ceeb bay ku tahay dumarkana ceeb bay ku tahay markaa intuu qofkii cawradii banneeyo in maansha alla loo soo qoro ceebtii baa lagu dhiirigelinaya arrintaa in la joojiyo weeye iliyo inkaar baaba jirto dee jidhkiisan qaar baa cawri karo hadhowbu ayuu dareemi karaa dhibaatadaas inaan rag iyo dumarku isdhex gelinna waa shardi marka had iyo jeer arrintaasoo kale ay tahay waxaa shardiya in cibaadada aanay kaa mashquulinin oo dee cibaadaduna waa hadafkii aynu u noolayn riyaadada waxaan la idhaahda iyo musaabaqadaas ama tartanka noocaasoo kale ahi waa inaanu khatar keenin
وهذه خطر يعني كل من يسجل كاجا سيدا ده إنه أرجنا قالوا ده مرة كقاركود يقف كنفتي سيبه خطر جليس صح معها وأنا خطر للجلينين سيدا كلا حيوان كلا سكود درع وضدك أي دعوة مركا شروطها ساتشرة مركا يتهايمد هذا بهوفن ولا جمارمان كقفكي إنه شركي يصير ديسه أو روح دي يصير ديسه لبضة بينك أو بحر maaha qofku qof jirkiisa qura ku dadaalaya qof jirkiina dayacay ruuxdiina dayacayna maaha laakiin way labadiisuba dhisnaadaan oo waxaynu doonaynaa almu'minu alqawiy sida nabigu uu sheegay hadaad quraanka kariinka akhrido waxaad arkaysaa qisadii ninkii daaluud la oran jiray boqorkii reer banu israa'iil waxa lagu doorto quraanku uu tilmaamay wazaadahu basatan fil ilmi wal jism waxa uu leeyahay awood xagga jirka ah iyo awood aqoon xagga dagaalka marka awood iyo aqoon labadaas lagu doortay marka xaqiiqatan waxaan qisooyinku aad iyo aad bay u badan yihiin waxaan soo koobi karnaa maaha marka qofka muslimkii maaha kawma min ash-shahm kuus xayro meel iska fadhiyo maaha waa qof si cibaadadiisi riyaado ugu helo awood ugu helo bacaan ugu helo caafimaadkiisana uu danaynay ila nabigu wuxuu inna li jasadika alayka haqqan jirkaaga xilba ka saaran xaq buu kugu leeyahay nabigu alayhi salaatu wassalaam marka awalan ruuxdaynu danaynayna iyo awooday leedahay caafimaadka jirkeenana waynu danaynayna marka sidaasaynu kelmadan ugu qaadanay maanta baraarujin aynu baraarujinayno inuu qofku ku dadaalo dhaqdhaqaaq qofka muslimka ah oo kolba wixii uu kari karaya haday socod tahay iyo hadii ay tahay orodkii iyo hadii ay tahay dhismihii kala jirkiisa uu dhisay intaasaynu galabta baraarujin lahayn anigu runtii mayhi hawlahaasaan maaragtay nin ku fiicanahay mayhi galabta inkastoo dee jimicsanayna oo rabadaan baha hataan iska soconaynay haddana waa arrin u baahan inay dadku ku baraarugaan oo dadka qaarkoodna waxay ku sameeyaan quluwiyo waxay aaminsan yihiin wixii oo dhamiba in la soo xidhayo qofku halkiisa uu iska fadhiyo dadka qaarkoodna waxay aaminsan inay gaalada ku daydaanoo muruqyadu la dhiso macno kale aan la keenin labada qolaa loo dhaxaynaya qofkii jirkiisina waa inuu dhisaa ruuxdiisina waa inuu dhisaa marka xadgudubna male gawadfalna male nabigeennana meel walba tusaale wanaagsan inoogu ah ilaahay waxaan ka baryayaa idinka iyo aniga iyo innagaba inuu cudurradaas laga cabsi qabanay naga badbaadiyo cibaadadeennana uu aqbalo cisi iyo sharafna uu na siiyo sidaasaynu ilaahay ka baryaynaa jannadana ilaahay uu nagu casuumay cadaabkiisana inaga badbaadiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin وانا إذي سو دعينا إذن كنا ويدي نو سو دعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته